السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعندي السلام يا والله قلبي مالك سودا دوكا كجوكتان دمان waxaan idin leeyahay caafimaad cimri dheeri iyo bashbash iyo barwaaqo soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan warshad kiray barnaamijkan meel kasta oo aad joogtid markuu ku soo gaaro please waa codsi أن عوا وحن كشجع ما حد يهتي هبين كوت هاي ده وحوي ما معلم كوت هاي ده هذا قرنا أنا يقول تبع إمي كابو قرح وقت كجلاي إمي كا وقرح وقت كجلاي ده وكاس سود وهذا صحابتي يقول قال يا ملك سود دوكا كجوكتان واشدنا لكي أو إدلة أن برنامج كعوا وحوي جهيا صويع أو سيشر قري عاو وحوية وبرنامج حساسي هو قطره وميلا بدن تابانيو أيان كهذي دورا إن شاء الله تعالى كحرنو يوتيوب كشيدان لكي مالك السعود جوكتو وكاقا مهد علني الدعوة الشباب الدعواتي مالي والبا سيدا دي إلا سعودتو وحن كلايا هاي ما تسري ويل هداتا إيه هداتا كبرتها وحكا لكو وحايا دي نبجو أو يلا نوعه إسكرام إن ترى يا هذا يا وأنت سوا كفتن كيجي وواطعني إنه أسكع عادي ولا قلبي كسل له النبي اللهم صل على سيدنا محمد أنا إذا يوسف تاجي وقت صلاة دي لك أروح أقول دري ولا صوتك أنا هاي في سنة دولت يا دقيقة تايبة كيف فكر عن قرار كيف فكر إن الدوكان وحيد جوا إسكا يوم ير أو قاون وقت ير أو قاون تقو أجوجي سأدوكان لكن ماشي هذا كده مانين قرادة كنت ذال الله كعبسي كنت ذال صلاة كنت ذال وارد كعبسي كنت ذال وارد مرقو قراض ها محاسوقفتا ما حيالا وعلى النبلو يا حاجة في عشيق وعندنا إبراهيم مشيال كلنا ماشي كوكيرا لا إله إلا الله jannadaadu waaridkaada lugooday ku jirtaan iyo wax kale kuma dhihi kareen iyo gabdhahana waxa waaye waa qaar adaga waris jalciyo riyada kuwa oo waaridka adayga ku adaya kaaga xun adaaba hooyo noqonaa marka dambe hooyada abaasi uu ilaadeeyay adaaba dhalahay marka dashane kuwa ugu ilaadeeyay marka koobi ha qaadanina original qaade hooyada aabaa warka maqlay baray waxaana la hadlaa weliba ku qurbaha jooga waa ku Soomaali jooga wallahi wala gisura wallahi laba reer aftiya laga kicina qurbaha oo saadigu dhiga gabdhaha qurbaha jooga hooyada ay abada maskaxdooda adag ay noqoto warka maqli ways yaa kaaga xunay adaa dhalay marka dasho nin markuu guursado dhish adigna way ku ila adayga marka koobigi aad ku sameynayso hooyada ay abaa ila adaygi de waxaway ilmaaduna hedhow waa saasay noqonaan originalka qaado duceyso mahad sanidiin walaalaha qalbiga meel kasta aad joogtaan aw waxaad yahay barnaamijka aan ka hadli doona insha Allah taala wuxuu yahay barnaamijyaasha qaybta tahriibka iyo qayba kaleeto waqti baan waxaan galay shakhsiyadeyda ayaan ka sheekeynayaa sheeko tahriiba ayaan galay marka sheekooyinka taariifku way fara badan yihiin horta hal iyo laba maahan lama soo koobi karo marka sheekadii taariifka waxaan kasoo bilaabayaa insha Allah taala bilow wuxuu iga bilaabanayaa muqdisho xamar baan ka baxay waxaan ka raacay gaari hoomey baa la dhahay hoomey aan raacay inkastoo baabuurta Soomaaliya magacayaasha loo yaqaano ama badi aan wada aqoonin aniga ilaa hadda laakiin hoomey oo ah gaarigu waan ka raacay halkaa iyo bakaaraha ayaan ka raacay waxaan aaday halkaa iyo Kenya day jiro day alxamdulillah gaariga waan raacay gaariga markuu muqdisho ka soo baxay oo duleedka uu joogo ayaa waxa dhacday niman qoryo wata ayaa waxay ka soo baxeen hawdka horta waxa yeelay dhagaxaan ayaa jidka ugu go'anay gaarigii markii uu dhagaxaanta ka istaagay ayaa afarta koor waxna looga qabtay kii qoray ahay oo carar jiro carar bam waa dadkii way degeen dad ma dhaawacmeen
dadna kuma dhiman alxamdulilaahi laakiin waa la wada ordo yaan warka ugu daalin xilliguna waa intee mataqaanaa imisadii mataqaanaa adiga xilli maqribka ku dhow ay aheeday waad dareemi kartaa xilliga maqribka ku dhow yani soomaaliya dhulka dhan jawigu waa iftiin waay adduunka dhan waa nuur calaa nuur waay wuu iftiimaya waxaa dhacday marka waa cararnay laakiin yaan helahe nimaba aa mooday inay farda ciirsan jireen ayaa intay halkaa gosha ku orteen qoryo wato ayay horeyna haddana xabad nooga soo bilaabeen kuwana dhinacaasay kasoo ridaan yaa isdilaahay marka yaa dambaalo duurka loo diraa qof kasta halkeedii bereg ku qabatay kuwii gadaal ku haray oo kasoo cararnay oo laga orod badiyey iyo kuwii orod badiyeba kulli hal meel la isugu keenay su-aashii ugu horreysoo nala su-aalayaa waxay ahayd waa xusiistaay sababta u orodeen maxay tahay dee waxaa ka baqnay inayna dishiin dee waxaa kaloo ka baqnay dee inayna baaratiin safaraa u socono dadkaan kulli kenya wada soconay dadkaan marka inkastoo gaarigu kenya uuna tegi karinoo dhulka soomaalida ay degantahay ayuuna geynayaa dee waxaa ka baqnay waa ina dishiin ama ina baaratiin sidaas umwey wax kale ma aha haddaba bishaarana la yidhi haya bilkhayr insha allah waxaad igu bishaaraynaynaa oo anaga bishaaro naga ah dembi baan ugu ahaatay dheh wax kale ma dhihin haye wax allaale iyo waxaad wadatiin oo lacag ah ama telefoon ah ama saacad ah ama dahab ah intaadan xabad qodqod laydugu siinin maraa inta dhulka naloo dhigay waxa la yidhi bartaa ku guro dadkan waa safar magaalooyin badanaan sii marayna wax la cuno waa la rabaa kontaroolo badan waa la sii maraa kontarooladu lacag haddaadan bixin ma gudbi kartid tala intay ku cakiran tahay see la yeelahay markee odayaasha waa loo bilaabay warkoodiyaa loo yeelo qof walba jeebkay gacantuu dayso wixii dollar ku jiray waa la soo bixiyey qof walba jug ilaa safar hatee dollar unbaa qaadanaysaa magaaladaa tagto waxaweye ayaa saraf laga helaa markaa wax cunaysid ilaa soomaaliya dhan dollar bay hadda isticmaashahay war lacagii halkiyaa lagu qufay teleefoonadii halkiyaa lagu wada riday maaragtay wixii oo dhan markay naga aruursadeen ayay waxay yidhaaheen alleen waxaaba jiraba dadku markay safar yihiin soomaaliga waaridka ka raacayaan wax yaroo adiga pocket money ayay meelaha kore soo gashtaan mahane tuugadu waa og yihiinoo lacagaha badanoo ama dollarka ama $500 $600 $200 qofku sarwaalkiisa qayb ka mida ama meel ka mida oo dharkiisa macal dumarka dharkooda meel ka mida ayay kusoo tolayaan waxaa la yidhi intaan maa wadagtin iyo intaanoo telefoon iyo intaanoo saacada iyo dahabkii aawa iyo male iyo dad safraama dahab qaatay iyo meeshii hatee sheekadaasaa timida waxaa la yidhi haddaba gacanti intaan meesha makuridinoo ahaa gacantii ugu dambaysa anagaa idi marinayno waa anagaa idi baarayna nin iyo naagsaa u leedihiinba waxawaaye naagaha hate ka mixishoonayno anagaa la gelayna waay gacanta arrimo ilaahay ka baqaa bumbum oreeda dunida koofanaana lama qaadine korkora baasha naloogu ridi arna baartaan niri waaye waa la isbaaree wallaahi alcadiim macalnimadkii sarwaaladay wateena laga dhigay kastumooyina lagu reebee sarwaalka gudaha maaragtay meesha dabool lambarka ku leeyahay ayaan qayb walba waaba tuugo waa ogyihiinba meeshiyaabay sarwaal walba ka baareene alaabo oo inta badan dadka meelo badan oo tuliina lagu arko saan markii loo taabto lacag dollar oo saasa ay ku jirto sakiimay watay jac fakata sarwaalka xag ku tuur waxbaa ku jiro maya jakatax bac dheer hawdhe nac kasoo siib warwaaba noogu wada tolneedba aniga qudheyda $400 ayugu tolneeday sarwaal waa la ii soo dhaadhiciyey kaartadan waa la isbaartaa ku tolo gabdhihii la baaray qaar badan oo dahab meel ugu jiray laga hel ayaga naftigeedu dollar meelo badan ugu jiray laga soo fatataq alxamdulillah ilaahay maaragtay qadarkiisii ku dhacday waana la day waa soconna
kontaroolaan tagnay lacagta keena intaas waa ayaga iska cayimanaya gaariga hadduu rakaab saaran yahay walaalayaal waa nala soo baartay waxaan daaba haysan waxaan dollar haysan waa la qaatay maya waxaas ma jiraan gaariga dhiga raashin lama wata haatee tuula noo dhow tuuladaas haddii la taga lacag lama haysto wadhamakii waxay yidhaheen meeshan waxaa ku taalo taara ku yaalay iyo meel xawilaada haye meelihiinni waxda dadkiinni nimankii gaariga watay ku yidhaaheen waa inaad dadkiina wacatiin lacag noo soo diri tiraahiin lacagta saas ugu siya si kaleeta ma ku baxaysa okay waay kaa amar bada dowlada way xoog badana baleelooyin war gaariga halkii la dhigay waa war idu daaline waa baxna wal weyna tuuladii tagnay nimankii dadkoodii la hadleen lacag loo soo dhigay aniga xogaa shaqsiyadeyda kuusa meel ugu soo tagay wadan kale aan ugu soo tagtay kuus oo waxaan naftii war waxaan waa lay baartay kisi yar oo jacaysinkaado ilaa Kenya ugu tala Kenya 400 camal waa adiga ugu yaraan meesha Muqdisho markaa ka baxay ilaa Kenya 150 adiga pocket money iyo qarbudkeegi iyo waxay igaba badan ba lacag ay soo har leedahay inta haysta laakiin xarfaana iga qalaaluf marka lacagta waa noo soo dirdiray controlki lacagtiisa la siiyay waa sii soconay waxa tagnay maxaa la dhahay xuduudka Soomaalida iyo Soomaaliya iyo adiga dhinaciisu ko Soomaaliya laga haystay aan adiga oo Soomaaliya iskale ala xal tagnay gaarigii bartaas ku ekaay oo naga soo noqoy gaari kaleeto oo maaragtay in raacnay ahayd laakiin waxa la yiraahdaa lama raaci karo webi ayaa waa in dadka doona yani webiga la geeyay la lugeysiiyay webiga ayaa doona laga saaray doontii markaa aan raacnay waa habeen adiga waqti dambo war waxa waqtiga loo jeer inay noo soo noqdaan dadku waa badan yihiin dad hore meesha joogay aniga intay nagu dhaqoobeenay waxa ku leeyahay doontii intay tiri laba nin fanaynay wallahi cid joojinaysa mal way qaadatay biyo qaadatay webigana roobado waxa way webiga qarqaradu koos marka wax yar hadana webigu wuu weynay ilaahay amarkiis laba wiil ku dhacday waa xusista abbar markaa soconay hadana waxa la yiri inta ku xira karna doontii geed madax qaac ku siisay gadaal buub ku soo tiriyay hadana xariifkii ji intuu jiiriyay hal mar dabada dambir siisay waxa ku leeyahay afar kana jaga taxfax hal gabar inta kale wiilay aan tarawa ku baxay biyo qafku biyo ku dhacay waa taqaanaa waa ku jiray ya ku tagaa guriyada adag soo tagay aan baasha ku soo saaray lacag ku dhacday walaal cid ku joojinaysa ma wariyaan war idu daalina ay hal dadkii tageen aniga nabad galnay laga dijiyay cabaar waxa loo weyn ugu yaraan saacad iyo bar aadana si loo weynay gawaariya meel loogu timid aan qaaday adoo on warka wadii boobsiinaya waqti uu sii dheeraada marabay Kenya tagnay Kenya like waxa ku galay gaari yar ku maaran gelinay gaariga yar ay meel uu geeyo waan ka tagnay ilaa amarkii subax ay say basaski baxaya meel duur ah u istaagna xariifa bala ma baski baawur weyn oo baso dhar George yaa bana la hadlaa jaa tikidkan waa sii jarnay bi raaxa ku kor ila lacag badan naga qaateen meel kasta ila lacag bixino wayna Kenya tagnay ila amarkii isli meel la dhahayo hotel iska kireystay shakhsiyadeeda waa iska dagay dadkii kale la meesha qof walba meel ay u socoto professionkeedu ahaa Kenya adiga laba habeen ku hooyanay ka bacdi magaalada gale Soomaaliya meel kasta dudayso waxay u taariikhka camal South Africa camal guriga baligeeba taariikhka South Africa bis ka baxo guriga tagay waa la dawaam geliyay yaa war igu daaline ka bacdi lacag la iga qaaday waa baxnay basana la saaray wax xusiista baski markuu nawaday oo yaraan 50 kilomitir ayaa meel dooran lagu dajiyay lacagtana laga qaaday ala shakhsina waxay ahaday lacagtii South Africa lagu geey oo ninkan ugu geey lahay ayuu hal mar duubad ay naga yiriyo fara badan qof walba ninkii meeshii markuu nagu dajiyo adii 50 kilomitir oo amal Kenya oo duleedka koran nooga saaray ayuu yiri meeshan booliis ay maara booliis gala meeshan geedahooda markaan fadhiisano yiri war qoorta tagtaagayay waa fiirinayaa meelaha meeshiinu ku jiraan laga soo bixin haye
afar saacadood qoorta dhulka saa ugu hayna dhabarka iyo qoortii hadday jabeen waxaan isku raacnay ninkii inuu lacagtii la dhuunto soo baxa qoorta taagtaaga ma leh ninkii saasa ugu dambaysa markii ugu dambaysa haddana waa soconay nin kale haddana waxaa helinay oo isna keyaatiya anaa tahriibina uu yiri kisoo naga daliiqday wuxuuna adiga saacado badan uu lugeysiiyey geeda cambayaal hoostooda fadhiisay wuxuu yiri cambahan iska cuna tuule inta intaga cabitaan iyo rooti waxba diigi keenan asna hore nooga tagay warid u daalle barnaamijku waa soo gabagabeynaaye bartaas aan maalin kale idiigisi aanba qaadi doonaa laakiin waxa igu darneeday markii aan xuduudka Malawi iyo ma horta adii kala daadina warkee meelaan hadda ka hor anagoo marayno oo xuduudka Malawi iyo South Africa anagoo marayna labada xuduud ayaa habeen ilaa ronda marta meeshaan ay moogtahay Zimbabwe iyo Malawi labada control way rondeeyaan marka habeenkii isku qaldameen way isxabadeeyeen waxay u maleynayaan dad tahriiba Malawi aan laga dilay marka anagoo gaajo la tacbaan la Malawi ku aadnay marka dhinaciisu oo xuduudka markaas aan wardiya qarna faanahay meel adiga tuule oo ninkii reerkiisa degan yahay oo la keeno la yiraahdo la duug meeshii aan imaanay markaas aan wargaajo tacbaan maaragtay raashinahana la siiyo magaalooyinka aan maraynay marka dhibaatada aan kala kulanaa waxa yani noogu badneed dollar wadana dollar ma yaqaanin marka wuxuu ku leeyahay dharkaaga naqana dollar ma naqaan dharkana si cunta ku karinayna marka dhibaatadii wixii ugu qosolka badnaa waxa ahayd gaalkii dhintay meeshii lagu duugay waxaan warbaayaan ay raashin nasiyo 30 qofood camal Soomaaliyeed markaas waxay dhahay waxa la karinaa bariis iyo hilib lo'aad marka إلا وين أويسين مركز أويسين وحلا ليه هبلا محاولي متاي هبلا نقلان ما كوهاي ساي هبلا وناكتي ما إلما كودا لو سوالو أوينا مركز برا على كراعة مركز وين أويسين كوريو ده أوينين راشينا لما سيراي إلا مع الحبشة دي مع العنقي وين أوينا حبشة دي بس كعادة دو قالة موقت لكن عنقا قاعد جا أوين تنوكي سنة ورح نسيرنا حنوف على مريين ده معروف لمري ولا بيبين قالك ولا دوغي نفع لوجي 60 تاس Soomaali waa jindi taariikhi ku wada waalata waxaan caday marka markii la duugay oo adiga oo digsiyaasha hilibka dabka saaray iyo briiski iyo wixii waxa dhacday adduun moogta rufyaan lagama waaye wixii anigu sugayno maanta waa noolaanayna isdheeyno ayaa mid hoos ka wacay booliskii Zimbabwe ku dhigana Malawi Zimbabwe waa gudbayna wax yar ka bacd boolis waxa imaad Cabdibilayaal oo dabada ka wada qufulan markii mideen Soomaali waa lagu guray wallahi bariiskii oo taqtaqayo dabka saaray hilibka anaga u jeedo la soo gaajo ku geysatay badar raashinka alfani shabaqlaha lagu qaado xabsiga la geeyay qofkii xabsiga ku qaadiyo waa $50 bax waa ila soo qadatay tan weeyna waa iska lacag ka badan marka waxa kale markii dambe xabsigii waa galanay waa naga dayay laakiin